halkani waa BBC oo aad ka dhageysataan muujadaha gaagaaban efemyada magaalooyinka qaar iyo barta internetka ee bbcsomali.com. duhur wanaagsan dhageystayaal waa 16 bisha Juulaay saacada Afrikada barina waa 2 duhurnimo oo gow ah. qodobada aad ku maqli doontaan barnaamijkana waxaa kamid ah aas qaran oo magaalada Garowe loogu sameeyay Allah u naxariistay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Abshir Faarax. qubarada saadaasha hawada oo ka digaya dabaylo xoogan oo laga cabsi qabo inay ku dhuftaan qaybo kamid ah bariga Afrika. waxa kale oo aad maqli doontaan dadka ummadda Soomaaliyeed ee ayaga ay u dhextaagayaan inay tahay wixii sifa sharci ah ee baarlamaan iyo markaa loo maray dariiqii saxda ahayd oo ilaa iyo hadda anaga wax ka bedelan doorasho qof cod oo markaa ay ka timid. waa xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo xalay la kulmay madaxweynaha Soomaaliya kana hadlay arrimaha doorashooyinka Soomaaliya. sidoo kale waxaad maqli doontaan falanqayn ku saabsan qodobkaasi iyo wararkii ciyaaraha. qodobadaas iyo kuwa kale ayaad ku maqli doontaan barnaamijkan oo si wada jir ay u soo saareen Samiir Cabdullaahi Jaamac iyo Axmed Badar. anigu Xasan Sheekh Cumar ayaan idinla socodsiinaya dhageystayaal. waxaan ku bilaabaynaa wararka caalamka ee BBC-da iyo Fartuun Ismaaciil. mahadsanid Xasan. xaflad loogu talagalay in lagu maamuuso dadkii u dhintay cudurka coronavirus ayaa lagu qabtay magaalada Madrid ee dalka Spain. khudbad telefishinka laga sii daayay ayuu boqorka dalkaasi King Philip ku sheegay in dadkii heladooda ku waayay safarka corona aysan murugada iyo dhibta ku dhacdayba keli ku ahayn. waxa uu sheegay in kumanaan muwaadiniin ah ay waayeen amaba muujiyeen asluub iyo dhaqan wanaagsan oo tusaale u ah sida ay uga jawaabeen cudurka. mas'uuliyiintu ay ku jiraan madaxda caalamka ayaa dhammaantood xirnaa maaskaro madow. dhaqaalaha dalka Shiinaha ayaa dib u soo kabanaya kadib hoos u dhac ku yimid markii bilowga sanadkan oo dalkaasi ka dilaacay cudurka coronavirus. tirooyinkii ugu dambeeyay ee la shaaciyay ayaa waxa ay sheegayaan kobac ka badan 3% oo laga soo bilaabo intii uu ahaa sanad ka hor. 15 oo maamuuska Nobel ah oo isku jira ayaa saynisyahano iyo khubarada dhaqaalaha ay kamid yihiin shakhsiyaadka isxilqaan loogu tijaabin doono talaalka COVID-19. in ka badan 100 kale oo kamid ah shakhsiyaad magac iyo maamuusba leh ayaa sheegay in hindisaha loogu magac daray loolanka tijaabada uu xoojinayo horumarinta talaalada si loo badbaadiyo malaayiin qof. haatan xarumaha cilmi baarista caafimaadka ee daafaha dunida waxaa diyaar ku ah ku dhawaad 320 talaalka coronavirus. Twitter ayaa xadgudub weyn oo dhanka amniga ku tilmaamay talaabada lagu jabsaday ciwaano ay leeyihiin dad magac ku leh bulshada caalamka. ciwaanada la jabsaday ayaa lagu soo qoray fariimo been abuur ah oo dadka lagu weydiisanayo lacag tabarucaad dhanka barnaamijka Bitcoinska oo gaaraya $1,000 iyagoo rajaynaya in ay laabanto lacagtooda. tiro dad ah ayaana lagu qiyaamiyay in lacagahaasi ay diraan. ugu dambeynna dalalka Armenia iyo Azerbaijan ayaa midba kale waxa uu ku eedeynaya inuu si sahlan u jibiyay xabad joojinta u dhaxaysay kadib markii uu dhexmaray dagaal maalmo socday oo galaaftay nolosha 16 qof. labada dhinac ayaa sheegaya in hubkii ay adeegsadeen lagu garaacay agaarka tuulada Tavush oo ku taala dalka Armenia. warkiina waa inaga intaan dib idinkuga celiya Xasan Sheekh iyo barnaamijka qaybihiisa kale. aad bay u mahadsantahay Fartuun Ismaaciil oo nala socodsiinaysay wararka caalamka ee BBC-da iyadoo ku sugan meel ka baxsan stuudiyaha. dhageystayaal diyaar garooba qaybaha kale ee barnaamijka. aynu ku bilownay magaalada Muqdisho waxaa salaada janaasada lagula tukaday Allah u naxariistay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Abshir Faarax oo dhawaan ku geeriyooday dalka Turkiga. mas'uuliyiinta dalka oo ka mid yahay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka qayb galay salaada janaasada ee marxuum Xasan Abshir Faarax. wariyaha BBC-da ee magaalada Muqdisho Beelo Sheego ayaa warkan ka soo dirtay Muqdisho.
madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynayaashii hore ee dalka ee kala ah Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif Axmed ayaa garoonka diyaaradaha Aadan Cabdulle kaga qayb galay salaadii janaasada Allah u naxariistay ra'iisul wasaarihii hore ee dowladda ku meel gaarka ahayd iyo duqii Muqdisho marxuum Xasan Abshir Faarax. diyaaradii sidii marxuumka waxay ka soo kacday dalka Turkiga waxayna soo gaartay saaka Muqdisho markii ay soo caga dhigatayna garoonka waxaa naxashka marxuumka lagu hubiyay calanka jamhuuriyadda waxaana soo dejiyay cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed markii ay qaadayeen saantooda waxa ka muuqatay murugo. madaxweynaha ayaa markii ay soo salaada janaasada waxa uu si gaar ah u tacsiyay qoyska marxuumka oo qaar kamid ah ay ku kulmeen janaasada isagoona alla ugu baryay samad iimaan. intaas kadib marxuumka ayaa loo gudbiyay magaalada Garowe halkaas oo aas qaran loogu sameynayo iyadoo ay ka qayb galayaan ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyre madaxda dowlad goboleedyada qaarkood xubno ka tirsan golaha xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo mas'uuliyiin kale oo heer federaal iyo heer dowlad goboleedba ah. way mahadsan tahay Beela Shogow oo warbixintaasi nooga soo dirtay magaalada Muqdisho sidaad warbixinteedaba ku maqlayseen intaasi kadib waxa ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Abshir Faarax loo qaaday magaalada Garowe iyadoo halkaasi lagu aasay waxaana ka qayb galay aaskiisa mas'uuliyiin oo kamid yahay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre iyo madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Cabdullaahi Dani. Axmed Awil ayaa faahfaahinta warkan nooga soo diray Garowe. maydka ra'iisul wasaarihii hore ee dowladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Abshir Faarax ayaa la soo gaarsiiyay magaalada Garowe ee garoonka markii diyaaradii waday ay soo caga dhigtay waxaa ku sugnaa madaxda maamulada iyo waliba ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka ee Soomaaliya sidoo kale waxaa goobjoog ahaa gudoomiyaha aqalka sare hogaamiyaha xisbiga wadajir iyo waliba madax kale oo Puntland iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya ka tirsan. dhinaca kale dadweyne aad u fara badan ayaa gobolada Puntland ka kala yimi oo si ay uga soo qayb galaan aaska marxuum Xasan Abshir Faarax. waxaa jirtay markii garoonka laga soo dejiyay marxuumka in ciidamo taagootinaya ay wadeen sanduuqa uu maydku ku jiray marka haatan ayaa lagu aasay marxuum Xasan Abshir Faarax maalin hore ku geeriyooday dalka Turkiga maanta ayaa magaalada Garowe lagu aasaya. uu mahadsan yahay Axmed Awil oo isna warbixintaasi nooga soo diray magaalada Garowe. waa tahay dhageystayaal markaana qubarada iyo maamulayaasha hawada ayaa ka digaya dabaylo xoogan oo laga cabsi qabo inay ku dhuftaan deegaano ka tirsan bariga Afrika laga bilaabo maanta oo Khamiis ah. qaybta saadaasha hawada ee dalkani Kenya ayaa sheegaysa in dabaylahan xoogan ay guryaha saqafka kore ka qaadi karaan isla markaana ay sababi karaan burbur xoogan. meelaha ay dabaylahaasi ku wajan yihiin waxaa ka mid ah gobolka waqooyi bari ee Kenya oo Soomaalidu ay degto. Faarax Lamaane ayaa warbixintan noo faahfaahinaya. sida laga soo xigtay hay'adda saadaasha hawada ee Kenya dabaylaha laga cabsi qabo inay ku dhuftaan qaybo ka mid ah dalka ayaa waxa ay ku socdaan 40 mitir sekankiiba. hadalka waxa kale oo lagu sheegay in dabaylo u socda jihada koonfureed oo sekankiiba jaraya in ka badan 30 noot ama 15.4 sekan la filayo in maanta oo Khamiis ay haleelaan gobolka xeebta ee Kenya iyo dhanka bari ee dalka. hay'adda saadaasha hawada waxa ay ka digaysaa in dabaylahaas xawaarahoodu uu kordhi doono marka la gaaro 3 aroornimo oo 40 noot ay gaari doonaan ama in ka badan 20.6 sekankiiba. dhanka xeebta ayaa waxaa la filayaa inay kiciyaan mawjado uu joogoodu sareeyo. waxay u badan tahay ayaa hadalka lagu yiri in mawjaduhu ay noqdaan kuwo waaweyn oo ka dheer 3 mitir xeebaha wadanka Kenya jimcaha marka la gaaro waxaana la filayaa in ay hoos ugu soo dhacaan 2 mitir iyo bar sida ay hay'addu sheegtay. meelaha digniinta waaweyn laga bixiyay waxaa ka mid ah oo ku jira Marsabit, Turkana, Samburu, Mandera, Wajir, Isiolo, Garissa, Kitui, Makueni, Taita Taveta, Tana River, Lamu, Kilifi, Mombasa iyo Kwale. dadka deegaanadaas ku nool waxaa lagula taliyay inay isha ku hayaan oo ay ka digtoonaadaan dabaylo xoogan iyo hirar waaweyn oo ka soo kaca badweynta India. hay'adda saadaasha hawadu waxa kale oo ay ka digaysaa in dabaylo xoog leh oo la filayo sabtida inay hoos ugu soo dhici doonaan ilaa iyo 30 noot ay dhici karto in ay saqafka ka qaadaan guryaha ama ay geedo rojiyaan oo ay keenaan khasaare dhismayaal halka dhanka aragtidana ay noqon doonto mid liidata. waxaana imaan karta ayay leedahay hay'addu in ay doomo degaan ama ay halis gasho nafta dadka biyaha ku cayaara ama u tumash la taga xeebaha. waxaa kaloo dadka la weydiistay inay dhageystaan warbixinta.
uu mahadsan yahay faarax lamaane oo warbixintaasi soo jeedinayay. qodobkaasi qaar ka mid a dhegeystayaasha b b c ee dhinaca facebook ayaa aragtidooda ka soo dhiibtay. dhegeystaan oo lagu magacaabo xamdi muuse saalex oo joogta baran waxay leedahay allah dadka waa in looga diga ayay leedahay khatartaasi ka imaan karta digniintaasi khubaradu ay jeediyaan, islamarkaana dadku waa inay ilgooniya arrintaasi ku eegaan. way mahadsan tahay. waa dhegeyste ka mid a dhegeystayaasha dhinaca facebook aragtidooda ku soo dhiibtay. welina halkaad naga dhegeysanaysaan waa b b c. b b c waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyey ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba. ku dhawaad 60 xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa xalay kulan gaar ah la yeeshay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. kulanka xildhibaanada ayaa waxa uu ku saabsanaa arrimo la xiriira doorashada dadban, iyagoo ku adkaysanaya in madaxweynaha ay ku dhiirigeliyaan sidii ay dalka uga dhici lahayd doorasho hal qof iyo hal cod ah. waxaase dhanka kale tiro badan oo ka mid ah dadka jaangooya siyaasadda Soomaaliya ay aaminsan yihiin inay adag tahay suurtagalnimada arrintaasi. haddaba si arrintaasi aynu faahfaahin dheeri uga helno waxaynu la xiriirnay xildhibaan maxamed cumar dalxa oo ka tirsan baarlamaankii xalay la kulmay ee madaxweynaha Soomaaliya. qadka telefoonka waxa cabdiraxmaan cali dhimbil. kulanka wuxuu ahaa mid wax isweydiin iyo wax isu sheegid la xiriirta nidaamka dastuuriga ee dalka iyo shuruucdiisa dhaqangalkeeda iyo howlaha la xiriira doorashooyinka dalka iyo waxa markaasi kaga aadan fulinteeda golayaasha dowladda iyo madaxweynaha oo isaga ah ilaaliyaha sharciga. marka amurahaasi ayaa laga hadlay. marka imise xildhibaan baa ahaydeen? 60 waa ku dhawaayeen xildhibaanada. 60 xildhibaan ee madaxweynaha u tagay sheegay inay la talinayeen. maxaa idin mideynaya idinka si guud? maxaa isu keenay? waxaa isugu keenay annaga oo hal shacab, hal ummad, hal qaran aan ka wada turjubayno oo waxa aan annaga hawshayada ay tahayna ku dhaqanka iyo ilaalinta sarreynta sharciga oo aan la wadaagno madaxweynuhu ayay ahayd xaaladda dalka lagu jiro iyo sida looga fadhiyo in xadgudub iyo aanu imaamin waxa la yidhaahdo constitutional crisis ama in xeerkii iyo sharciyadii ee wadanka isku hayay iyadoo baryahan dambe waxyaabo fara badan oo ummadda ay isweydiinayaan iyo tuhumo fara badan ay soo baxayaan iyadoo baarlamaanka iyo wixii go-aan iyo sharci horey uu u gaarayna sidii iyada loo qangeli lahaana looga fadhiyo. wax la taaban karo markaa maxaa ka soo baxay kulanka inaanan imaan wax la yidhaahdo jebin baarlaman marka shaqada uu leeyahay ee shuruucda aan kuu sheegay wixii hadda la gaaray iyo wixii xaq uu leeyahay dastuuriyan ama golayaasha dowladda iyo hay-adaheeda dastuuriga ah ama ha noqoto maamul goboleedyada waxa dalka dadka ummadda Soomaaliyeed ayaga ay u dhextaagayaan inay tahay wixii sifa sharci ah ee baarlaman iyo marka loo maray dariiqii saxda ahayd oo ilaa iyo hadda annaga wax ka bedelan doorasho qof iyo cod oo markaa ay ka timid oo jeedinteeda ama iyadoo hindisa sharciyeed ah xukuumadda baarlamaanka. marka xildhibaan marka hadalkiina lasoo ururiyay madaxweynaha waxaa ku dhiirigelinayseen in dalka ay ka dhacdo doorasho hal qof iyo hal cod. waa tuu saxiixay baarlamaanna uu ansixiyey xukuumaddana ay soo gudbisay. laakiin haddii ay yimaadeen duruufo oo la yidhi hawshaasi suurtagal ma aha idinkuse uma ekidin rag laftoobin ku hayo oo raadsanaya sababay xilka kusii joogaan. waxaan ku joogayna waa maxay? anaga waxaan baan ficina baan kula doorasho qof iyo cod. wax rabitaan la yidhaahdo ma jirto. sida sharciga uu rabo ayaa qof waliba u khasban yahay inuu raboodo. waa go-aan baarlamaani ah oo dastuuri ah. siyaasiyiin badan oo mucaaradku ka mid yahay, qaar ka mid a maamul goboleedyadu ay ka mid yihiin, falanqeeyayaal kale oo siyaasadeed waxay qabaan inaanay suuragal ahayn in dalka ay ka dhacdo doorasho hal qof iyo hal coda. waxayna aaminsan yihiin in lasii hadal hayaa waxay ka dhigan tahay in la rabo in xilka la korodhsado. marka idinku inay weli ku adkaysanaysaan iyadoo intaasoo dad ay qabaan in duruufta adag tahay, soo idinku sifoobi mayso hadalkii ahaa inaa xildoontihiin oo aad rabtaan inaad meesha sii joogtaan. annaga waxaa hadda annaga magacyo oo annaga hadda nalala baxaya ama media oo ayaga ay soo saarayaan oo annaga laga wareegta maaha. waxaa annaga aan ku hadlayno waa wax sharci annaga sharcigaasaana aan naqaanaa kaasaana dadka hadana fadhi ku darir manihi iyo qof waliba wuxuu doono inuu iska yidhaahdo loogaga jawaabo. kaasi wuxuu ahaa xildhibaan maxamed cumar dalxa oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya, gaar ahaan xildhibaanadii xalay la kulmay madaxweynaha.
waxaana qadka telefoonka ugu waramayey cabdiraxmaan cali dhimbil. haddaba waxaa jirta aragti kala duwanaan dhinaca hanaanka doorashada ah. arrimahaasi waxaa nala falanqaynaya cabdisalaan guuleed oo ka faallooda arrimaha gobolka. goordhoweed ayuu qadka telefoonka igu waramay. kol hore waxaad ogeed guddiga doorashooyinku ay baarlamaanka horgeeyeen ajendahooda iyo fahamkooda iyo soo jeedintooda. waxaa dhinac socday inaan maamul goboleedyada arrintaas hore looga talagelin ayna aad runtii uga xumaayeen laftooda in go'aamadaas soo baxaan oo qaarkood hataa ay warqado soo hordhigeen ay leeyihiin go'aankaas lagu dhaqaaqay. iyadoo arrintaas culays weynu ka jiro ayaa haddana waxaa furma shirkii galmudug magaalada dhuusamareeb oo isugu yimid maamul goboleedyadu. waxay isla maalmo ka bacdii waxay soo saareen warqad ay ka muuqato isla ogaasho oo yara muujinayaan inay doonayaan inay u dabciyaan dowladda Soomaaliya ka soo qayb gasho oo aysan deen xanaaq iyo runtii waxyaabaha siyaasadda Soomaaliya looga barto xoolaha malaysa inay ka fududeen. ra'iisul wasaaraha Soomaaliya lagu casuumay oo imaanay madaxweynaha lafkiisa waa la sugayay maalmihii soo socday. marka dadka siyaasadda Soomaaliya haday shacab noqdaan iyo international community haday noqdaan runtii waxaa u muuqata rajo aad u wanaagsan oo leeslahay dhinac baa la isku raaci doonaa wixii rabaa ha noqoto. laakiin hadalka shalay ka soo yeeray gudoomiyaha baarlamaanka iyo arrintan la sheegay xildhibaanada iyo madaxweynaha farmaajo xalay wada leen oo la sheegay waxaad maraysaa inay caqabad ku noqonayso rajadii laga qabay inay ka soo baxdo galmudug. isku soo duubo hadalka gudoomiyaha baarlamaanka haddaana qaldanen waxaa ka mid ahayd waxaan constitutionka waddanka ama qaynuunka waddanka ogolayn wax laguma dooran karo doorasho dadbanne lama ogola. waxyaaba marka u baahan aan isleeyahay in runtii dhiirina laga muujiyo si dhaban loo wajaho waxaa ka mid a qof kastoo maanta xil u haya Soomaaliya hadduu maamul goboleed yahay iyo hadduu yahay madaxweynaha waddanka ugu sarreeya wuxuu ku yimid doorasho dadban. qof iyo codna Soomaaliya waqtiga hadda la joogo waa hami lagu hami karo waa wax la hiigsan karo laakiin suurtagal ma ahan. haddii aanay taa suurtagal ahayn maxay tahay sababta xildhibaanada qaarkood iyo gudoomiyihii baarlamaanka ay xoogga u saarayaan in ay dhacdo doorasho hal qof iyo hal cod ah? dhinaca haddaad ka fiiriso gudoomiyihii guddiga doorashooyinka Xaliimo Ismaaciil waxay soo jeedisay baarlamaanka hor keentay in waqtina lagu daro qof iyo codna la aado. qof iyo cod la aado waa in la isla ogolaado horta in doorasho lagu daro waqti lagu daro laano labada soo jeedinood labaduba waxay ahaayeen waqtigii dawladda hadda jirta ugu darayeen. mucaaradka iyo maamul goboleedyadu arrintaas wax laga wada tashan wayna diidan yihiin. suurtagal marka aqliga saxda ma aha yani loojigna ma aha haddii gudoomiyuhu diido iyo haddii baarlamaanku diidaan iyo haddii madaxweynuhu diido iyo haddii kala diidaba waxaan suurtagal waqtiga jira lagu qabto doorasho qof iyo cod. haddii marka doorasho qof iyo cod ay ku adkeystaan ama dawladda ama madaxweynaha ama gudoomiyaha baarlamaanka ama qolo ku adkeysato macnaheedu waxay tahay waxaa loo qoriyo guranaya oo juhdi loogu bixinaya wax kasta laga hormarinaya ku darsasho waqtiga hadda jira oo dawladda loogu daro laano waxa dhiman waa 4 bilood iyo 3 wax lamid ah in runtii wax la isla qeexo. waayahay marka hadda ma u muuqataa in khilaaf dhinaca doorashada ah uu ka dhex jiro maamul goboleedyadii oo dhowaan soo saaray in doorasho dadban la aado iyo baarlamaankii qaarkood oo iyaguna ku doodaya in la qabto doorasho hal qof iyo hal cod ah? haddaan shalay ka soo bilaawno shalay iyo maanta iyo waqtiga hadda socda haddaan fiirino xoogaa waxaad u malaysaa dareenkii iyo niyaddii wanaagsaneed ee maalmahan socotay islaam shirkan ka socda galmudug wax wanaagsan ay ka soo baxaan xoogaa caqabad baa muuqata laakiin weli kama hordhici karno ma dhihi karno mowqif siyaasadeed oo weyn oo lagu kala duwan yahay ayaa jira. waxaan isleeyahay haddii la isugu soo laabto hadda waxaan u malaynaa madaxda inta badan waxay jiraan duugta waxay ka qayb galeen ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Abshir Faarax Allah yarxam alayh markii la isugu soo laabto magaalada Dhuusamareeb isleeyahay waa madaxa soo socda. dabcan isleeyahay fil Soomaaliya madaxweyne inuu yimaado la sugaya waxaan rajo weyn ka qabaa in wax la isugu imaan doono in wax fiican ka soo bixi doonaan. kaasi wuxuu ahaa cabdisalaan guuleed oo goor dhaweed ii waramaya. weli halkaad naga dhageysanaysaan waa BBC. waa tahay dhegaystayaal ciyaarihii ayaa inoo soo socda hase ahaatee markaan dalka Hindiya waxaa lagu soo waramayaa in kiisaska fayraska corona ay ku dhow yihiin 1 milyan. warbixintaasi waxaa soo akhrisay oo haatan stuudiyaha ila joogta Samir Cabdullaahi Jaamac. Samir mahadsanid xasan. dalkaasi Hindiya kiisaska cusub ee cudurka coronavirus ayaa laba jibaarmay oo sare u kacay iyadoona tirada maalinlaha ah ee la helayo ay u dhaxayso 27,000 ilaa 29,000 oo kiis ah sida ay sheegtay jaamacadda Johns Hopkins. gobolka galbeedka ee Maharashtra
oo ah gobol uu si weyn cudurka u saameeyey ayaa 8,000 oo kiisas hor leh oo cusub laga diiwaangeliyey maalinnimadii arbacada oo keliya, taas oo kiisaska guud ee gobolkaasi ka dhigaysa 275,000 oo kiis. warbaahinta dalkaasi waxay ku waramayaan in dowladda ay xaqiijisay in ka badan 10,000 oo qof in ay cudurka u geeriyoodeen. magaalada caasimada ah ee Mumbai oo iyaduna uu si xun cudurka u saameeyey ayaa lagu waramayaa in la diiwaan geliyey 100,000 oo kiis. gobolka koonfureed ee Karnataka oo isaguna wuxuu uu diiwaan geliyey 3,000 oo qof in laga helay cudurka 24 saacadood ee la soo dhaafay, halka gobolkaasi caasimadiisa ee Bangalore la geliyey bandow horaantii toddobaadkan kadib markii laga helay 50,000 oo kiis oo hor leh. waa tahay Samiira, way mahadsan tahay. haddii aynu eegno wararka ciyaarahana dabcan maanta ilaa galabta ilaa caawa ciyaaraha dhacaya waxaa ka mid oo ballansan ama loo ballansan yahay Everton iyo Aston Villa ayaa ballansan. Leicester City iyo Sheffield Unitedna waa ay kulmi doonaan. Crystal Palace iyo Man Unitedna way wada ciyaari doonaan. Southampton iyo Brightonna dabcan way is arki doonaan. waa tahay dhegeystayaal, waxaa xusid mudan in dhinaca Facebook aad si toosan nooga dhageysanaysaan. haddii Allah awood la yiraahdana qodobada soo maqashay iyo kuwa kalena waxaad ku maqli doontaan idaacadeena dambe. hase ahaatee markaan baafinta waxaa si wada jira stuudiyaha BBC-da ee magaalada Nairobi idinkaga soo tabinaya anigoo ah Caasha Saciid Xasan iyo Samiir Cabdulaahi Jaamac. mahadsanid Caasha. baafinta ugu horeysa maanta waxay naga soo gaartay Sayid Axmed Cismaan Eenow oo jooga magaalada Nairobi. waxa uu baafinayaa Suufi Cismaan Eenow. waxa uu wardambeysay isagoo ku sugan Gaalkacyo sanadii 2017. haddaba haddii uu maqlayo Suufi Cismaan Eenow ama bay jirto cid garanaysa, fadlan warkiisa la gaarsiiyo Sayid Axmed Cismaan Eenow iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay magaalada Nairobi. Canab Cali Maxamed oo joogto Boosaaso waxay baafinaysaa Maxamed Caynab Cali. haddaba haddii uu maqlayo Maxamed Caynab ama bay jirto cid garanaysa, fadlan warkiisa la gaarsiiyo Canab Cali Maxamed iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Boosaaso. Jimcaale Faarax Muumin oo jooga Kalabeer waxa uu baafinayaa Xasan Faarax Muumin. waxa uu wardambeysay isagoo ku sugan Yemen sanadii 2015. haddaba haddii uu maqlayo Xasan Faarax Muumin ama bay jirto cid garanaysa, fadlan warkiisa la gaarsiiyo Jimcaale Faarax Muumin iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Boosaaso. Aadan Khaliif Muxiidiin oo jooga Boosaaso waxa uu baafinayaa Haashim Khaliif Muxiidiin. waxa uu wardambeysay isagoo ku sugan Cumaan 2016. haddaba haddii uu maqlayo Haashim Khaliif ama bay jirto cid garanaysa, fadlan warkiisa la gaarsiiyo Aadan Khaliif iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Boosaaso. Aamina Bashiir Mustafa oo joogta Boosaaso waxay baafinaysaa Nuuro Bashiir Mustafa. waxa uu wardambeysay iyadoo ku sugan Sacuudiga sanadii 2000. haddaba haddii ay maqlayso Nuuro Bashiir Mustafa ama bay jirto cid garanaysa, fadlan warkeeda la gaarsiiyo Aamina Bashiir Mustafa iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Boosaaso. Abshir Maxamed Cumar oo jooga Boosaaso waxa uu baafinayaa Kamaal Maxamed Cumar. waxa uu wardambeysay isagoo ku sugan Cumaan 2007. haddaba haddii uu maqlayo Kamaal Maxamed ama bay jirto cid garanaysa, fadlan warkiisa la gaarsiiyo Abshir Maxamed iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Boosaaso. Xaawo Cusmaan Xaaji oo joogta Kuntuwaare waxa ay baafinaysaa Cali Ibrahim. waxa uu wardambeysay isagoo ku sugan Zambia sanadii 2000. haddaba haddii uu maqlayo Cali Ibrahim Cali ama bay jirto cid garanaysa, fadlan warkiisa la gaarsiiyo Xaawo Cusmaan Xaaji iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Marka. Falis Cumar Bashiir oo joogto Boosaaso waxay baafinaysaa Naciimo Cumar Bashiir. waxa uu wardambeysay iyadoo ku sugan Yemen 2015. haddaba haddii ay maqlayso Naciimo Cumar Bashiir ama bay jirto cid garanaysa, fadlan warkeeda la gaarsiiyo Falis Cumar iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Boosaaso. Masxaab Cabdi Axmed oo jooga Afgooye waxa uu baafinayaa Saalax Cabdi Axmed. waxa uu wardambeysay isagoo ku sugan dalkan Kenya sanadii 2011. haddaba haddii uu maqlayo Saalax Cabdi Axmed ama bay jirto cid garanaysa, fadlan warkiisa la gaarsiiyo Masxaab
cabdi axmed iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay marka. maxamed aadan ducaale oo jooga boosaaso waxa uu baafinaya hani aadan ducaale waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan yeman 2001 haddaba haddii ayna maqlaysa hani aadan ducaale ama way jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo maxamed aadan iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay boosaaso. maryan maxamed cilmi oo joogta kuntuwaare waxa ay baafinaysaa macalin axmed cabdulle waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan hong kong sanadii 2000 haddaba haddii uuna maqlayo macalin axmed cabdulle ama way jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo maryan maxamed cilmi iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay marka. taliso eedow geelle oo joogto boosaaso waxay baafinaysaa ismaaciil cabdi garasow waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan yeman 2005 haddaba haddii uuna maqlayo ismaaciil cabdi ama way jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo talisa iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay boosaaso. doolaay axmed mayow oo joogta kuntuware waxay baafinaysaa maka cali yaxye waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan sacuudiga sanadii 2000 haddaba haddii ayna maqlaysa maka cali yaxye amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo doolaay axmed mayow iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay marka. cadow ibraahim garaad oo jooga boosaaso waxa uu baafinayaa dulmar cadow ibraahim waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan maraykanka 2014 haddaba haddii ayna maqlayso dulmar cadow amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo cadow ibraahim iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay boosaaso. carawey aweys xamuud oo joogta walaweyn waxay baafinaysaa nuur axmed warsame waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan maraykanka sanadii 2001 haddaba haddii uuna maqlayo nuur axmed warsame amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo carawey aweys xamuud iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay marka. aniso maxamed ibraahim oo joogta boosaaso waxay baafinaysaa maxamed cabdiraxmaan maxamed waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Itoobiya 2003 haddaba haddii uuna maqlayo maxamed cabdiraxmaan ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo aniso maxamed iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay boosaaso. luqmaan cabdi ibraahim oo jooga kuntuwaare waxa uu baafinayaa samiiro xasan cabdi waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan maraykanka sanadii 2000 haddaba haddii ayna maqlaysa samiiro xasan cabdi ama way jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo luqmaan cabdi ibraahim iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay marka. xuseen cabdiraxmaan saciid oo jooga boosaaso waxa uu baafinaya maxamed cabdiraxmaan saciid waxa ugu wardambeysay sanadkii 2003 haddaba haddii uuna maqlayo maxamed cabdiraxmaan saciid ama bay jirto cid garanayso fadlan warkiisa hala gaarsiiyo xuseen cabdiraxmaan iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay boosaaso. guuleed cabdi iimaan oo jooga janaale waxa uu baafinayaa suldaano guuleed cabdi waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan sacuudiga sanadii 2005 haddaba haddii ayna maqlaysa suldaano guuleed cabdi amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo guuleed cabdi iimaan iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay marka. xaawo axmed isaaq oo joogta boosaaso waxay baafinaysaa mukhtaar axmed isaaq waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan mombaaso 1994 haddaba haddii uuna maqlayo mukhtaar axmed ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo xaawo axmed iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay boosaaso. xaliimo cabdi yaxye oo joogta qoryoole waxay baafinaysaa cali xasan dayib waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan yemen sanadii 2008 haddaba haddii uuna maqlayo cali xasan dayib amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo xaliimo cabdi yaxye iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay marka. cabdalla muudey ibraahim oo jooga boosaaso waxa uu baafinayaa abuukar muudey ibraahim waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan yemen 2016 haddaba haddii uuna maqlayo abuukar muudey ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo cabdalla muudey
iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay boosaaso. cabdi axmed cali oo jooga afgooye waxa uu baafinayaa cabdirasaaq xasan jaamac waxaa ugu hordambeysay isagoo ku sugan dalkani kenya sanadii 1995 haddaba haddii uuna maqlaya cabdirasaaq xasan jaamac amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo cabdi axmed cali iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay afgooye. cali warsame maxamuud oo jooga boosaaso waxa uu baafinayaa ikraam faarax maxamed waxaa ugu hordambeysay iyadoo ku sugan kenya 2001 haddaba haddii ayna maqlayso ikraam faarax amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo cali warsame iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay boosaaso. saadam axmed cusmaan oo jooga baraawe waxa uu baafinayaa saalax axmed cusmaan waxaa ugu hordambeysay iyagoo ku sugan yemen sanadii 2011 haddaba haddii uuna maqlaya saalax axmed cusmaan amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo saadam axmed cusmaan iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay marka baafintina maanta waa nageynta. way mahadsan yihiin samiire cabdulaahi iyo caashe siciid oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi baafinta isaga ayaan ugu dambeeyey idaacaddii duhurnimo ee 5 galabnimo haddii allaha waddo la yidhaahdo nabadgelyo.